ها marka su-aasha kale oo weydiisay waxay tahay een, ma civil partner ayaa tihiin ma walaalo marriage caadi ay naga dhexayso oo oo ama home affairska mise immigrationka ka registraysan. Horena waan uga sheegay inuu nin imaam oo halkan joogo South Africa inagu isku keen meheriya. Marka ninka imaamkana qaadiga waxaa laga aqbalay xagga sharci ahaan wadanka aan joogno. Marka asaga sidaas daraadeed ayaan anaga aan sharci ahaan aan ugu sharciyeysanahay xagga home affairs-ka ama immigration si loo yaqaan mise meesha qaadiga marriage-ka. Marka walaal su-aalooyinkaaga inaan kaaga jawaabaan jeclahay. Aad iyo aad u mahadsantahay maadaama su-aaladan isoo weydiisay. Hore aan ugu sheegay su-aaladaada waxaan ka ahayn hadduusan ahayn waxaan ku hadla maysan lahayn. Weli waan ku gudub jiraa inaan tago oon meel magaalada aado oo aan xaggaa shaqo ka raadsado oo si aniga aan iskugu xorbixin lahaa mise aan meel iskaga bixin lahaa gooni ahaanteeda. mar walba oon wada hadalno oon aniga aan dib sheegto wuxuu yiraahdaa anigoo dhibkaa sheeganaysa maxay tahay, noloshaada way fiican tahay, dad badanaa ka fiican tahay noloshaada. Waxaa jirtay mar aan iswada dagaalnay oo aan hanaaqnay hantidiisa oo dhan ani igu qoray. Marka wuxuu yiri aniga haddaan dhinto hantideyda oo dhan aday kugu wareegaysaa waataan kugu qoray. Marka dhibka aad sheeganaysa maxay tahay? Ani ninkan hanti kuma guursanin, iskuma aanan guursanin hanti. Run ahaantii markii hore isbaranayna wuxuu ila ekaa mise ila ahaa ilaa haddana wuu yahay qof qalbi fiican, daacad balse nolosha isbedesha. Waxaa isbedeshay noloshii, fikradihii isbedelay. Aniga asaga alaa kulli xaal wixiina soo dhex maraba halkaas ayaan kala taagana. Koleyta haddaad maqasheen hantida hadday kugu qoran tahay ma iska samirtid baa lagu dhihi. Walaalo haddii aad faraxsaneen maanta haddii 1 milyan lagu siiyana wax ay faa'iido tahay ilaahay uunta ma jirto. Mar walbana waxaan ku fikiraa anigoo dee muu iska dhinto qof bini aadan oo asaga inaad adiga aad maanta aad ku hawaysato oo adigana aad ilaahay uga barido inuu dhinto. Taa ayadana waa laga fiican dilaaga qoriga intuu qaato oo dilaayo har iyo habeen ummadda laaynayo waxba kama tugnid. Marka aniga halkan anaa iskeenay anaa 14 jira. Intaas aan magaceedii aan wadankan joogana aniga uma meel iska soo bixin jiray iskana soo bixiya shilin
hadda haddii hataa haddii la yiraahdo hadda inaan isforno oo waxay noqonaysaa hantidu asaga leeyahay kala barobar in aniga aan liigu wareejinayo balse ani hanti iskumaan guursanin hanti ani inaan lacag ka helay iyo hanti inaan ka helay iskumaan guursanin sababtaan ula wadaagana oon social media baraha bulshada aan usoo dhigana waxay ahayd inaan aniga aan sheego waxaan aniga ahay inaan ani qof Soomaali aan ahay oo nin wada joogaan oo noloshan ay caadi tahay maadaama dad badan oo anaka inaga mid yihiin ay jiraan balse aanan hadli karin sababahan u hadli karinna dee waan wada ogsoona dhaqan iyo diinta iyo waalidkeena iyo walaalaheen sababahooda ayaan una hadli karin marka aniga maadaaman haddii aan sacrifice sameeyey oon waxaan isiri koleyto qof inuu bilaabo waayo hadalkan weligeed haddii aan aamusnaano oo la yiraahdo qof walbo haddee waalidkiisa u turaya weligeen saan umaan u aamusnaanaynaa wax isbedelayana malaha marka aniga sidaas ayaan sacrifice aan u sameeyey tii iga raacdana ilaahay ma ogsoona marka wakaa walaalayaal su-aasha inaan kaaga jawaabno u jeclahay waan islaama walaala meel walba joogteen fadlan subscribe si laag sii commentina iga bix till next time bye marka qofkaasu maanta 12 saac asagu inaad ka hadasho weligiisana qofkaasi dambi ma galo dambiga alla dambigii mise eed walba oo saarto qofka lagu saaraya mise adigu ku saaraya kugu soo celinaya marka asalka weligiisa saas uu ahaa laakiin asalkii markii ugu horeysa waxaan u malayn jiray qof aad i jeceloo jecelkiisa xadaaf ah uu xadaaf yahay balse 7 sano markii laga soo wareegay run ahaantii aan sii gudub galay oo research badan aan sameeyeyna waxaan ogaaday qofkaas inuu yahay narcissist markaa saas la adligeed wax walba oon sameeyo aniga ma qancin karo asagu ma isqancin karo anigana meesha waan ku bacayaa waan ku hoogay su-aashaas inaan kaaga jawaabo ayaan jeclaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام عليكم وجوكتين وحل هوري صباح كسر هذا الشاي قعدت هذا كله أنا كويس تا وحيدي وحيدي بصدق magan allahu fadlan haddaad igu cusub tahay subscribe sii like sii commentina iga bixi ina sheegala videoga si aan subscribe u helo ilaan shilin baan ka raadinayaa shadow ayaa la yirahday wiilkan mar dhow nagu soo biiray alaa kul xaal su-aalooyin aan rabaa inaan ka jawaabo aadam deble yarka wato isoo su-aalay walaalo aada iyo aadaad umahadsan tahay run ahaantii su-aaladaada haddii aysan ahayn clipkan maanan sameeyaan ilaa waxaan ku hadla maaqaan marka aada iyo aad ayaad umahadsan tahay marka waxaan rabay ilmaha ka qulqulaya ilmaha ka teela let me clean your eyes marka walaalayaal su-aasha ugu horeysa waxay ahayd odayga
odayga lacagtaas u qaataa. Waan hore aan uga hadlataa ayada ani bangi account ma lihi, waana furan waaye dhowr jeer aan isku day inaan furto. Alaa kulli xaal sharci la'aantigeed ayaa aad igu dhibtay inaan furan. Marka ma haysto bangi, asaga bangigiisa ayaan accountigiisa aan isticmaalaa. Marka saas la'aantigeed lacag walbo aniga aan shaqaysto miseba ii soo dhacdo xaggiisa ay ku soo dhacdaa. Su-aashaas inaan kaaga jawaabo ayaan jeclahay. Su-aasha labaad oo i weydiisay waxay ahayd maxaad u tiraahdaa odaygayga mise odayga. Horta walaalo haddii aan Soomaali nahay waxaa jirtaa weligeen waxaan ma arki jirnay dumar iyo rag isguursado. Badidoodana ninka ragga hadduu uu jiro 20 jir nin yaroo hadda soo qangaaro oo guursado hadduu yahay, markii gabadha la weydiinayo ninkaaga aawe lama dhaho ninkaaga aabo, waxaa la dhihi jiray mise waxaa la dhahaa odaygaaga aawe. Marka waa hal la qabsi, maadaama aniga aanan dhaqan u lahayn miseba aanan garanaynin laba nin oo wada joogo wax la yiraahdo mise wax la yiraahdo saas la'aantigeed ayaan badanaa odayga aan u dhahaa. Waa hadal af Soomaali la qabsi. Haddii ingiriis ahaan ingiriiska markaan ingiriiska aan ku fasirayo oon dhahayo ninkaan wada joogno waxaan ku dhahaa life partner. Life partnerna waxaa loo yaqaanaa ninka qofkaad nolosha wada qaybsateen. Marka maadaama aanan ingiriis ku hadlin af Soomaali aan ku hadlin, ereygaas ma ila fududaado odaygii. Waa hal la qabsi wax saas igama ahan. Alaa kulli xaal oday waan isku wada nahay, anigana odaygiisaan ahay isagana waa odaygayga. Dhowr marna waan ka hadlay fiidiyoogii ugu horreysay. Alaa kulli xaal waan dhaligeliyay laakiinse aan ka faahfaahiyay su-aashaas inaan kaaga jawaabo ayaan jeclahay. Su-aasha saddexaad oo i weydiisay waxay tahay ninka sootaa is jecleedeen maxaa isbedela. Waxaa jirtaa walaalo erey la yiraahdo narcissist. Haddii ingiriis loo fasiro sida aan Google-ka aan ka soo baaray waxay igu fasirmatay isla weyni. Narcissist waa cudur. Badidoodana hadda raggay u badan yihiin sida loo ogsoon yahay. Marka qofka narcissistka markuu leeyahay waa qof asaga ma ahane muhiimad kale aysan jirin. Qofka mar walbana horta qalad ma qaato oo qaladkiis qof walba bini aadan umuu qalad saaraa. Wax qalad oo asaga u qaadanayo marnaba u qaadanayo ma lahan. Qofkaas wuxuu jecel yahay mar 24 saac inaa